dugsiyada nuuraddiin iskuulis بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا معلم رضوان أحمد ويدل وذاك دونا حسدين حسابته هاي جارهان فصل كتضباط عشر كان waxa hadii la hayraahdo inuu ka eegi doono inagu casharadii kan ka horeeyay aan ku soo qaadanay graafka markaa sida loo sawiro graaf jitimeedka iyo markaa goobeedkaba bal waxaynu isku daynaa insha Allah xiisadeenan maanta waxa la yiraahdo markaa qaybta la yiraahdo celceliska markaa celcelis la yiraahdo celceliska ardayo fasalka lixaad waad ku soo dhigatay imika fasalka toddobaadna waynu ku qaadan doonaa isla fasalka sideedaadna hadii la yiraahdo waynu ku qaadan doonaa noocyada celceliska waxa kamid aha afar nooc ayaa ugu caansan noocyada celceliska waxa kamid ah nooca la yiraahdo tirasin nooca la yiraahdo ee labaad ee la yiraahdo markaa badi dhace nooca saddexaad ee celceliska la yiraahdo waxa weeyaan waa dhexfur sidoo kale waxa ku soo biira saddexda nooc la yiraahdo marka isaguna faraqa xogta oo aynu ku qaadan doono fasalkeena sideedaad hadii la hayra faraqa xogta marka afartan shaqaba wuxuu bay la tacalluqaan magaca la yiraahdo celcelis guud ahaan afartanba waxay ku xidhan yihiin magaca la yiraahdo celcelis way haddaba ardayo celceliska bal hadda mid ayaynu soo qaadan doonaa midka ugu soo horeeya waa tirasin sida ciwaanka inooga muuqata waxa inoo qoran tirasin baa inoo qoran tirasin ayaa goobta inoogu yaala waayahay haddaba tirasinkii ayaynu markaa isweydiinaynaa talo tirasinku waa maxay guud ahaan markaynu sharxayno macnaha ereyga tirasin markaynu si caadiya aynu u sharaxayno waa laba erey oo isku darsamay ama waa laba erey oo la isku xidhay labada erey waa tiro iyo markaa sin tiro de waa tiradeenu naqaano waa tirooyinkii sin marka la yiraahdana waa isleekaysiin marka tirasin hadii imika magacan la isku akhriyo tirasin baa la odhan tusaale ahaan imika tirooyinka la yiraahdo 3 6 iyo 9 waa 3 tiro weeye saddexdaa tiro imika ma sinna maadaama aanay sinnayn waxaynu ku sameyn karnaa shaqo la yiraahdo tirasin baan ku sameyn karnaa oo talo tirasinku muxuu noqonayaa tirooyinkani imika isma leeka kana waa 3 kana waa 6 kana waa 9 marka tirooyinkani hadeeto isma leeka ma sinna laakiin waa tirasimi karnaa oo talo tirasinkoodu muxuu noqonayaa saddexdooda intaan isku geeyo ayaan 3 u qaybinayaa dabeeta imika haddaan 3 6 u geeyo ardayo waa 18 sagaal weeye sagaalna haddaan 9 u geeyo waa 18 18kii haddaan 3 u qaybiyo waxay noqotay markaa 6 iyo 6 iyo 6 u fiirsa hadalka saddexdan imika tiro may tirasinayn markii hore laakiin imika way tirasiman yihiinoo tiro isleeg ayay yeesheen inta badanna tirasinka haddii la isku geeyo iyo haddii tirooyinkii hore la isku geeyo waa inay isku wadar soo baxaan waa inay soo baxaan yani waa inay isku geyntoodu waa inay isku midun soo baxaan marka macnaha ereyga tirasin ardayo tirasin haddaad maqasho waa tirooyinka ayaa markaasi la simayaa waayahay balad aynu eegna markaa qaacidada guud ee markaa ay leedahay tirasinku waa kan waxa la yiri tirasinku waxa uu la mid yahay wadarta walxaha
oo loo qaybiyey tirada walxaha wadarta walxaha oo loo qaybiyey tirada walxaha ardayo tirasinku waa maxay baan ku uri tirooyinka lagu siiyaa intay doonaan bay noqon karaane marka la tirasimayo macnaheedu waxay tahay in la isku wada geeyo oo loo qaybiyo inta markaasi ay yihiin waxaa halkaa haddaba inoogu qoran qaacidada tirasinka la yidhaah qaacidada tirasinkana waxaynu ku tilmaannay waa tane waxaynu nidhi tirasinku waxa uu u dhigmaa ama waxa uu la mid yahay wadarta walxaha oo loo qaybiyey tirada walxaha ardayow mid baan rabaa inaad in badan fahanto oo aan doonaya inaan weliba ku celiyo mar kalena si kooban weliba war macnaha ereyga tirasin tiro sin shaqadan si aad u fahanto oo qaacidadana ay kaaga dhacdhacdo waxaan ku uri tirasinku waa maxay tirasinku waa wadarta walxaha loo qaybiyey intay yihiin laakiin macnaha ereygu waa maxay waa laba erey oo isku xidhan halkaa bal hadda aada ugu fiirso waa tiro iyo markaasi sin tani de waa tiro waan isla garanana waa tirooyinkeenu waa tiro de sin marka la leeyahayna waa isleekaysiin marka haddii la isku xidho waa tirasin almacnow waa tira isleekaysiin weeye macnuhu ereygu tirasin waa tira isleekaysiin bilmathalan iminka saddexdan tira iminka ayaa lagu siiyey mid waa 3 midna waa 6 midna waa 9 waxaan ku uri saddexdan tiro hadda ma tirasinna laakiin marka la tirasimayo waxaan ku uri inta la isku wada geeyo ayuun baan 3 u qaybinaya bal halka hadda u fiirso qaacidada iminkaan isticmaalaya waa tan bartan laynoogu sheegay intaynu iyaga isku wada geeyno waa 3 iyo 6 iyo 9 intaynu isku wada geeyno ayaynu u qaybinaynaa inta iyagu yihiin oo 3 marka 3 loo geeyo 6 waa 9 9 loo geeyo waa 18 18 3 u qaybi waa 6 bimacnaa dalik saddexdan tiro marka tirasin loo sameeyo ee la isleekaysiiyo min 6 bay noqonayaan inta badanna wadarta tirasinku waa inay la mid noqotaa wadarta tirooyinkii hore kuwa hore haddii la isku wada geeyo 18 bay haayeen tirasinka marka la samayna haddii la isku wada geeyo maxay noqdeen 18 marka halkan waxaynu ka fahmaynaa macnaha ereyga tirasin waxaan ku ardayo ereyga tirasin waa maxay waa tira isleekaysiin marka xogtaada ama warbixintaada noocyada tirooyinka lagu siinayaa ama ha noqdaan shabtabanlaya ama ha noqdaan yani tirooyin caadiya waxay doonaan ama yani ha ahaadaan markasta waa la isku wada geeyaa waxaana loo qaybiyaa inta tiro ee ay yihiin inta tiro ee ay yihiin bal hadda halkan aynu eegno markaa tusaalooyinkan waayahay tusaalaha ugu horeeya ee markaa ku salaysan tirasinka tusaalooyin waxaa la yidhi maxamed waxa uu helay markaa waxaan uu helay balada waxa ay yihiin xagga dambe inuu ka ogaanaya waxaa la yidhi waa imtixaankiisii fasalka 6 يعني نتيجة فصل كل حادي امتحان كيسي محوك هلاي شن اللي إحنا درجوه هلا مادة كلا وحو هلا أفريا سكاشن مادة كلا وحو هلا كونتون مادة كلا وحو هلا لحية سديتن مادة كلا وحو هلا لحية لحدن توضن بيسان وحو هلاي تضباطن ترى هالدوائم سمادو بردان ترينا مركع أنت مادي كو لبا صدح أفر شن لح مادوي haddaba 6 maada marka waxa la inaga rabaa tirasinkooda tirasinku marka muxuu yahay waa kan tirasin wuxuu u dhigmaabayn leen ama waxay la mid tahay waa wadarta walxaha oo loo qaybiyey tirada walxaha bimacnaa dalik imika inagu tirooyinkan aynu haysano ee imtixaanaadka ardaygu uu keenay ayaa markaa la isku wada geynayaa maadada koowaad 5 iyo 6 buu keenay 5 iyo 6 ayuu keenay waxaa loo sii geynay 4 iyo 9 waxaa loo sii geynay konton 6 iyo 8 6 iyo 6 iyo ta u dambayso 70 tirooyinka maadooyinka marka la isku wada geeyo waxaa loo qaybinayaa 6 oo talo 6 waa halkay markasta talo 6 ayaa loo qaybinayaa maya su'aasheena imika 6 ayay ku haboon tahay waayo tirooyinka aan haystaa waa 6 tiro guud ahaan tirooyinka aan haystaa waa 6 tiro weeye waayahay marka tirooyinkii isku soo wada geeyo maadooyinkii oo dhan isku geyntooda wuxuu haystaa 426 marka 6 loo qaybiyana ardayo
koob iyo toddobaatan dhibcood ayaa soo baxay markaa tirasinkan macnihiisu talo hadda maxay tahay yacni maado kasta wuxuu keenay tiro gaara buu keenay laakiin maadooyinkaa marka la isku celceliyo waxay u dhigantaa macnow maado kasta inuu keenay koob iyo toddobaatan waa macnaha marka uu leeyahay tirasinku okay taas waa su-aasheena koowaad ee tusaalaha ahayd aynu u soconnaa dambe markaa bal su-aasha labaad ببختنا waayahay haddaba tusaalaheena labaad muxuu hadda talo inoo tilmaamaya tusaalaheena labaad balda isagana aynu eegno waxaa la yidhi tirasinka dherarka 5 arday waa 1.6 baa la yidhi tirasinka dherarka 5 arday waa 1.6 way 4 arday dherarkoodu waa 1.55 mitir 1.55 mitir mid kale waa 1.65 mitir mid kale waa 1.71 mitir mid kale waa 1.56 mitir afartaa dherarkoodii waa layna siiyey laakiin dherarka ardayga shanaad ayaa markaa inaga laynaga rabaa waxaa la yidhi waa maxay dherarka ardayga shanaad waa maxay dherarka ardayga shanaad ardayga marka sidaasoo kale ay su-aal noocaasi noola kulanto waxaynu samaynaynaa oo aynu isku dhufanaynaa shanta arday ama yacni shanta qof ee dherarkooda la xisaabinayay iyo markaa tirasinkooda 5 ayaan ku dhufanayaa 1.61 waa 5 oo lagu dhuftay 1.61 mitir 5 lagu dhuftay 1.6 mitir talo haddaa imisay noqon doontaa 1.61 oo lagu dhuftay 5 5 ku dhufa hal waa 5 6 ku dhufana waa 30 oo waa 3 halkaasi waa eber yani hal 5 ku dhufa waa 5 baan ka hadlayaa 5tii oo loo geeyay 3na waa 8 bointigu waa 2 god halkaasuu imanaya marka waxay noqotay 8.05 mitir ayay noqotay haddaba afar ka mid ah dherarkoodii ayaa layna siiyey bal hadda afartaa markaa dherarkooda ayaynu isku wada geynaynaa mid wuxuu ahaa 1.55 oo loo geeyey 1.65 oo loo geeyey 1.71 oo loo geeyey 1.56 bal hadda afartaana aynu isku soo wada geyno haddaba isku geyntaa balda u fiirso isku geynta marka la isku geynayo tirooyinka pointiga wata ardayo pointiga ayaa la isku beegaa 1.55 waxaa loo geynayaa 1.65 waxaa loo sii geynayaa 1.71 waxaa loo sii geynayaa 1.56 intaasaynu isku soo wada geynaynaa intaas waxay isku noqotaa 17 hal baan wataa 11 7 geey 18 marka loo geeyo 5 waa 23 hal marka loo geeyo waa 24 oo 2 ayaan wataa halkaasi markaa waa pointi intaas waxay isku noqotaa 4 iyo 2 aan watay waa 6 intaasina waa 6.47 halkaasi waa 6.47 haddaba waxaan rabaa ardayow inaad ila fahansan tahay laba qodob kow isku geynta aan haystaa talo hadda waa isku geyn noocee ah marka koowaad halkan waxaynu ku haynaa 8.05 mitir waxaan ku hayaa waa dherarkii shanta arday marka la isku geeyo 6.47na waa dherarka 4 arday yani waa wadartii dherarka 4 arday intani weeye intanina waa wadarta dherarka markaa shanta arday marka labada tiro waxa u dhaxeeya ardaygaasina marka waa kaynaga layna weydiiyo waxa la yiri waa maxay dherarka ardayga shanaad waa maxay dherarka ardayga shanaad marka macnaheedu waxay noqonaysaa inaan labadan tiro aan kala goyno haye ila soco hadda halkan bal ardayo aad ila soco waxaynu kala goynaynaa wadartii dherarka shanta arday iyo markaa wadarta dherarka 4 arday waa 8.05 marka tobanlaha la isku geynayo ama la kala goynayo waxaa shardi inoo ahaa in pointiyada la isku beego
6.4 kiina waan soo hoos dhigayaa 6.47 waa la kala goynayaa markaa imika intaa wixii ka soo baxaa waa dherarka ardayga shanaad 5 kama jari kara 2 saas daraadeed kii ku xigana kama soo amaahan karo kan baan ka soo amaahanayaa waa 10 kanan ka sii amaahanayaa waa 10 kale markaa 10 5 u gashan 10 7 ka tar waxa noqotay maxay 8 halkan 9 bay noogu hadhay 9 laga jaray 4na waa 5 bay noqotaa pointigii mid ka soo qaad halka 8 bay noo qoran laakiin hal baa laga isticmaalay 7 ku hadhay 7 haddaan 6 ka jarana waa hal jawaabta noo soo baxday waa 1.58 oo macnaheedu ay tahay jawaabta imika uu buugeena noo soo saaray oo sheegaysa dherarka ardayga shanaad inuu yahay 1.58 mitir waa dherarka ardayga shanaad waa yahay aan ka sii socono markaa hadda arday waxaan isku dayaynaa macnaha ereyga tirasin ayaynu sheegnay aynu si kooban aynu u sheegnay arday tirasinku waxaynu nidhi mar walba waa in tirooyinka lagu siiyo inaad isku wada geyso inta ay yihiinna aad u qaybiso layligan halkan ku yaala ayaa la doonayaa in aad isku daydo haddii ilaahay idhaahdo layligaasi dee tirooyinkan wada socda waa maxay tirasinku waa su-aashii tirasinka uun markaa su-aasha ba'da iyo taada iyo jaada iyo dhammaan inta kale ku taala page-ka su-aasheenii imika u dambeysay ee aan ka shaqaynayay waxaa la mid ah su-aashaas ayaa la mid ah sidii imika aynu u soo saarnay dherarka ardayga afraad ayaad su-aashaana markaa u soo saaraysaa culayska miisaanka wiilka 8aad waxaa haddii la idhaahdo aynu halkaa ku joojin doonaa xiisadda haddii la idhaahdo aynu ku qaadanay macnaha ereyga tirasin iyo tusaalooyin kala duwan qaybtan xigta waxaan ku qaadan doonaa markaa labada nooc ee kale ee la yidhaahdo badidhacaha iyo dhexfurka marka celceliskana saddexdaa nooc ayaan ku dhigan doonaa haddii la idhaahdo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu